الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. مركنا عبد الله أحمد سمطر وكوها للدورة أفكار جديدة طبعا مناسبة كلام من وحكالك بيش محمود راب سوق فافايو وجدد اللي يسوي يوم مناسبة ذي وحيته كسروا عبد الله أحمد سمطر. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الصوماليين هاك الفضيلة سياسيين ganacsatada haweenka dhalinyarada saraakiisha qaybaha kala duwan ee bulshada beesha maxamuud hiraa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. tacaala ujeeddada shirka loo qabtay haddaan gudagalo waxa weeye shirkani ma aha shir siyaasadeed, waa shir dhaqan. arrin dhaqan weeye arrinta shirkan loo qabtay. sida aad la socotaan bulshada Soomaaliyeed iyo beelaha Soomaaliyeed waxay leeyihiin dhaqan soo jireena oo taariikh fog leh. halkan waxaa fadhiya ugaas Muxudiin, ugaas Faarax, ugaas Foodey oo aad la socotaan shirkan inuu ahaa ugaaskii beesha maxamuud hiraa ee ahaa soo jireenka laga soo bilaabo madashii carte mataligay bulshada laga soo bilaabo shirkii bagaasi mataligay bulshada sababa caafimaad ayuu muddooyin uga maqnaa. haddana waxaan filayaa beeshaan oo isku duubani kamaarnawaa xagga dhaqanka in loogu yeeray maanta oo taariikhdu ay tahay 27 bishii sanaad 2016 waxay qaybaha kala duwan ee bulshada beeshaani garteen inay lagama maarmaan tahay inuu hogaamiyo ugaas Muxudiin, ugaas Faarax, ugaas Foodey. sidaa daraaddeed shirkan ujeeddada loo qabtay waa arrintaas. ma aha shir siyaasadeed, ma aha shir ujeeddo kale laga leeyahay, waa shir dhaqan oo dib loogu soo noolaynayo dhaqankii bulshadaani ay lahayd, isla markaasna ay garatay ujeeddada lagama maarmaanka inay tahay in la nooleeyo dhaqankii bulshadaani ay lahayd. waana lagama maarmaan bay noqotay iyo arrin muhim ah oo lafdhabar u ah bulshadaani hoggaankii dhaqanka in mar labaad la soo nooleeyo. waxaan ku soo dhawaynayaa shirka salaadiinta Soomaaliyeed ee sharafka leh ee nagala soo qayb gashay, siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee nagala soo qayb galay, ganacsatada Soomaaliyeed ee nagala soo qayb galay, qaybaha kala duwan ee bulshada ee shirkan soo agaasimay ayaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo. waxaan shirka u rajaynayaa guul, miradhal iyo bulshada oo dib u midooda. ugaaskana waxaan u rajaynayaa in uu sidii lagu yaqiinay dadkiisa mideeyo, dadkiisa hogaamiyo, dadkiisa turxaan bixiyo, ilaahay la garab galo tolkii iyo cali cayle oo ku hadli doona afka beesha cid waqsan. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. hoggaanka dhaqanka ee halka jooga
وكان كبدن هالكا كوسوغان سيدا وغاسيدا iyo salaadiinta kale ee ka soo qayb galay munaasabadan taariikhiga ah waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan taageersanahay dib u soo noolaynta ugaaskii soo jireenka ahaa ugaas Muxudiin ugaas Faarax munaasabadan ay ku midal yihiin abiy kala duwanaa imaamku gacanteeda midig fadhiyo waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid doorkiisii shariifka ahaa dib u hanta kana qayb qaata xaaladaha dalka jira laga maarmaan bay noqotay cid ka samata bixin kartaa beesha in loo helo ugaaskoo in muddaa xoogaa وجعسنا لقى ماربان بين القطع اللي كان يمدبه صنع مساحة يسي وحنور الجيان هي الهوب والإسكوف فالكلي واجبات كوائد مركان وعاقل دونا نبضون حسن كاهي علي وقوة دونا أفكار بيش مخلصة الحمد لله رب العالمين وحاوية سرابينتا وحقرتها والرضا هوايتها دليرضا كسوق دمان كسوق قبياش الشركة حفلة قيمها له وحنكو سلام يا سلام الإسلام كسلام هو قيمها بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحالي الماشي تنفتها طي ورقمها الماشي تنفتوش دينا تمرقمها ورقة وحاوي تدسي انت قيمها دواء بابا هو مريض وجدد ماشي لود حفلة اللود جاي وشركة اللود جاي يوم قاولا يروح اللود جاي وقاس بيوتين وقاس فارح وقاس سودي وما تقانين وسوش غيي سيدا إمباجات جبوتي لبهشيسين وهو أصوّهم وقام معي شغلتي شغاء عافمات أوجد حاضرنا إلهي عافية الحمد لله رب العالمين لوغا رباهday shaqadiisii looga baahay waxaan maleeyaa wax badan inuu ka bedeli doono ilka sabtamada waaska iyo dhaqanka wax badan inuu ka bedeli doono oo inuu hantana waa rajaynayaa bulshada sidaasay u baahatay in dhaqankii dib loo soo celiyo oo dib loo nooleeyo asaguna ilaahay waxa uu shubeeyo u baahday waa u baahan yahay anaguna bulshaduna way u baahatay waxa weeyaan marka waxaan rajaynaynaa inuu wax badan ka bedeli doono waana taageersanahay waana la shaqaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay dadkiisa tii bulshadu isku raacdo oo hanta oo waxa weeye dad hadday suugaan leh ma fiicneen hogaankaas inuu noqdo hogaankii lagu aflahay inuu noqdo ilaahay baan uga baryaynaa الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله دمان متسع وغاسيدا نبضونا سبضونا شركتها رقم كلا دوان متشرفتا برشدا دليردا هوينكا دمان waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mar labaad salaamayaa إمامك شرفت بدن وقت سقالك على نوسه هوري وقاس الباشا أبقال عسبان وحن مرة السلامية وقاس باشا محمود هراب وقاس محمودين وقاس فارح وقاس فودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وحاي سلفية كسوف يفكرك أنا ذكر سوف يفكري فديغا ما دام بيش وليد باي لهي وقال ميديسان هذا سلام تركليو باشا هناك مسؤوليات اي كل هاي دور كلك وحوي الحدين افيس باوغاس هادري اوغاس باوغاس هادري وارسو جرينا ما انت بنت عصب ابي باوشريي تركيز باوشريي
وحال ومسؤوليات علوس ولا ربع بيش نقوم بداية بلا كلا درس على معنا أن كل بدونه أنه قدام بين شريعة الإسلام عند واحد كباير يسجلين روتين وحقيقة ونقول لك مسؤولية بس أنت يريد ولا مغنى حنونك وكم مغنى باشا محمود هلال أدري أدري إنك الصاحب لك العزي سياسة استدل ودك بعدين وحنقول رجالية وإلهي قبرية وأتبع الدار إنك الصاحب باشا الحمد لله بدلية لكن يا أولي بلا سوماليا لها محمد الهولي انترناشنال الله أصبره اللي يدعوه إلهي على قلب قلب باش توفيقنا الله وافجيه بلاها كلنا وحان كعسلنا إنه يواصل الشقيانون السعوديين صحافة شرفت بدن يرجع سؤال قاسمين وأنا ما علينا يا مرة يا مرسل oday oo ku hadlayay afka beesha reer maxamed waxaa ku xigi doonaa nabadoon cali geedi farayare oo ku hadli doonaa afka beesha habarwade dhammaan ugaasha ugaasyada nabadoonnada ururada bulshada waxgaradka haween iyo ragba isugu jira ee ka soo qayb galay taageeridda dib u soo noolaynta ugaas muxudiin ugaas faarax ugaas foodey waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu imaa bacdi salaam bacdigeed walaalayaal ugaas muxudiin nin aan maanta baranayno ama aan maanta dhisayno maayna hore u dhisnaa maantana waxa weeye waa soo noolaynaynaa intii uu xanuunsanaay intii uu dadka siyaasadda ka maqnaay intii uu dadka ugaasmanada ka maqnaay uu xanuunsanada daweynayay oo aan qur-aanka iyo daawadaba ku wadnay hadda ilaahay baa noo soo gobsiye waana noo yimi waana u baahnayn waana isweydiinay intuu naga maqnaay waxaan ku soo dhawaynaynaa oo aan ku hambalyeynayna ku taageeraynaa shaqada oo noo hayay haddana maaragtay aan maanta ogeysiinayno ummadda bulshaweynta ka korrayda in aan uguna hambalyayno ilaahayna uga barino in alla ku guuleeyo midnimada iyo isu keenidda gaar ahaan duduble guud ahaanna ummadda soomaaliyeed meel ay joogto waxaan intaa ka badan inaan ilaahdo mar rabo waxaan ku guubaabinayaa in oon ugaaska haddii ilaahay inay leeyahay aan ku garab istaagaynaa in ilaahay cadaaladda waafajiyo waxaa ku xigi doona nabadoon muxudiin nuur afrax oo ku hadli doona afka bisin wahadsan بسم الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليكم خبير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الحمد لله اله محبله وكان كان يكون كان وكاس اساس كان محبله سلامتي أنا قلت الله بين سلامك إسلامك عن سلامة يا باشا جاسيدا صحابيدا ماميدا كل الحمد لله رب العالمين سلامك إسلامك يا سلامة يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن تاجينا جاسينا بس جديد بس فرح بس فودي الحمد لله رب العالمين عن سياساتيسا وزمنتيسا شغليسا آدي طريقنا وتكني
آد صباحين أبدأنا الحمد لله رب العالمين سود ويهنا قول أفرق القرآن الكريم وعن رشدنا وعن التابعين الحمد لله لا مهندس أمام أنت ماشي أبو بروزان سرادين وقاشة واسدة تبدأ أنت ماشي أبو بروزان وحاول سلام الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام وياس محيطين وياس فردي وياس إلهي الرسول عافي وياس الله عافي عافاك الله وياس حيك اللوغيبي الله على قرب قلوب waxaan wakiil ka ahay aniga oo Khadra Xuseen Ciisow ah haween weynaha Maxamuud Iraaq waxaan halkan ku taageeraynaa kundiga shirkeena uu yahay ugaaskeena ugaas Maxamuud in aan ku soo dhaweyno dhaqankii duugoobay ee beesha Maxamuud Iraaq ka gashay dhaqanka waxaan rabnaa inaan dib ugu soo celino annagoo garbaha ishaysana gacmaha ishaysano qorihii dhaqan ee Soomaaliya waxaan leenahay ugaas soo dhawow noqo horti ku siman labada garbood noqo ugaas ay ku diibsadaan Maxamuud Iraaq ma ahan iska yeelyeel dhaqanku waa dhalasho maadaama uu yahay ninkii mudnaa awalba mudnaa haddana uu yahay annagu haddaan nahay haweenka waxaan taageeraynaa ugaaskeena ugaas Maxamuud waxaan taageeraynaa taageerahii hoole af dhaqaale wax walba leh dhinaca siyaasadda siyaasiga Cabdulla Faarax Xirsi Cawoole ayaa ku hadli doona afka siyaasiyiinta beesha waa xildhibaan hore waa oday ku caddaay soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسر بيشة واسر الدين واسر فارح واسر هودي واسر أحمد دحل السجها إمامك بيشة هراب أما مدلول شيخ محمد إمام محمود إمام عمر سلطان عبد الرحمن سلطان أول الدين سلطان كبيش الجوران سراكي شعيد المضى أضياء شكاً ururka haweenka ururka dhalinyarada martida kale oo aanan husin waxaan ku soo dhaweynayaa soo dhaweyn kal iyo laab ah waxaana leeyahay walaalayaal soo dhawaada munaasabadatan aan ku soo dhaweynayno ugaas Maxamuud ugaas Faarax oo horay uga shaqeyn jiray howlaha dhaqanka labadii kun ilaa kasoo bilow carta ilaa inbagaati si la xusana xoogaa wajaca ilaahay ka caafiyey waxaan uga baahanay midaynta waxaana rabaa hortiinna inaan saakay kula dardaarmo waxaan leeyahay ugaas Maxamuud beesha Maxamuud Iraaq cadaalad ayaa deeqda sidii gabadha iga horeysay waxaa jira kuwa gogoshaan fadhiya kuwa aragtida kala leh inaad xaq sootid adigoo maraya dariiqa toosan oo ah la tashiga dhaqanka waxgaradka ganacsatada siyaasiyiinta maxaa yeelay intaan iyo intay wakiil ka tahay inta ka soo horjeedada
انت واسع وانت هره وحدي جرتي نول او بيش محمود هراب كمل انيga واسع واي الهيسكيسو كاسو waxaa u maleeyaa maanta ma ayay maraysaa waxaa xaqiiqa in qaanada la galay haddii dhaqanku toosana waxaan rajaynaynaa wax badan oo noo tooso ka soo qaad kuwa hadda ku daadahaynaya ama kuwa ka soo horjeedaba ka soo qaad gogashata waxaa naga dhexeeya hal cad ayaa naga dhexeeya cadkaas adigoo ilaahay kaashanaya inta wanaagsan kaashanaya inta horumarka doonaya in aad soo celiso midnadii maxamuud hiraab magacii maxamuud hiraab qalban ayimkii aan ku lahayn beesha hiraab weyn ama hawi aan ku lahayn inaad soo celiso waxaana rajaynayaa nin walba inuu kugu dabafoyo ilaahay inankiisa walaalayaal waqtigoo iskuraya awgeed inaan ku dheerada ma doonayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta halkan waxa ka dhacaya oo ah in xalay ha harto waxaan leenahay horay ayuu u shaqayn jiray waasnaxudiin maanta daama uma dhimana wayna uma dhimana tixane reer ugaas ayuu ku dhex jira oo maanta u taagan yahay waxaanan ognahay wax badan oo dalabaanaysa inuu ku dhacay dhaqanka inuu ku dhacay sidaa darteed waxaan rabnaa ugaaskana inaan gacanta qabanno hogaaminno isaguna aan ku hagno dariiqa toosan kulana dardaarno maxaa yeelay diinta ilaahay waxay leedahay qofkii ilaahay la doono wanaag oo madax ah wasiir muxuu yahay waa naa'ib caawiye waaye ilaahay wuxuu uga dhigaa mid ku haga runta u sheega waxaan taa uga jeedaa waan is ognahay waxaan isu ognahay inaan u baahnayn maanta dhaqanka in wax laga bedelo beesha maxamuud hiraab ilaahay maanta waa keenay waxaan rabnaa inaan maanta sida aan hadalna halkaas u fadhino cadaaladana aan jecelnahay annaguna cadaalad inaan duulno asagana cadaalad ku garab istaagno ma isku ognahay maxamuud hiraabow waxaan nooga rabaa taas ayada ah maxaa yeelay hadda siyaasad baan ku hadlayaa ugaaska garabkiisaan taagan inuu aniga berri ii hili wax gaaraysiina diyaaru maahi waxna ay tari mayaan hortiina waa u sheegay waxaan leeyahay إلهي إذا الكيس كلها طريقة مستقيمة إلهينا قرب قالوا أننا الديار هاي أنت كانوا حاولوا بعضنا يخصيصوا خاصة وسارة دائما نباها قلت يا دور الشرعي كلا تدبن ملاحظة سريع الدولة إن ما أنت دعنا كي محمود هراب ومدسور ودي horena u soo wadi jiray howlaha dib heshiiska wax badan ka soo qaatay wax ka fuliyay kii lagu guuleystay carte wax ka fuliyay labadii sano ee dagaalkii la fadhiyay inuu maanta hawshiisii aan uga maarmi weynay dalanbaab nagu dhacay xaggeena dhaqanka darteed muraadkana inaanan ka ahayn kursudoon inaanan ku ahayn laakiin beeshaas maxamuud hiraab dhaqankeeda la soo nooleeyo magaceedana la soo nooleeyo intaas inaan u dooranaan u sheegaynaa in lagu gacan siiyana waan codsanaynaa in hay-adaha ay khusayso ee ka soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah ee loo bixiyey dib u nooleyntii dib u hagaajintii boorka jafidii maxamuud hiraab loo bixiyey waxaan leenahay ha guulaysato waxawaaye inta badan waxaa la yidhaahdaa ragga howlwadeennada ah ama maaragtay nabadoonnada ah waxaa la yidhaahdaa midkii wanaagsan ee toosan wadidkaama rabe midkii qalloocan ayaa wadidkaa raba sidaa darteed waxaan leeyahay ugaaska wuu sharfan yahay wuuna sharfanaa xoogaa cudurdaar dhinaca xanuunada awgeed ayuu saaxada uga maqnaa alxamdulilah intii hore uu xanuunsanaanay ajri xasanaad allah ugu bedelo
inta dhimanna waxaan leenahay noolo oo toos u toos dadkaaga way ku jecel yihiin way ku garab taagan yihiin weliba waxaan leeyahay hawlihii hore u socon jiray oo dhan waxaan kaa rajaynaynaa isbeddel la taaban karo inaad kala timaado ninkii dadkiisa garab taagan yihiin aqoonsi buu haystaaye ha isdhihin muxuu ahaa howlaha socda weli ayay wax maaragtay kuu laaban yihiin waanu ku aqoonsannay waanu ku garab taagannahay hiil iyo hoor ayaanu kugu siinaynaa sidii ilaahay raalli uu ka yahay waxaa kale ee jira waayadii hore waxaa dhici jirtay kow anaa iskale labana ma iga roona saddexle waa lacagtayda afar iyo shanle waa ninkan anigu waco iyo wax lamida waxaan marka leeyahay dadka u baahan in niyadda loo dhiso waa dadka laga tegey aan la aqoonsan ee jira dib loo riixay ama xoog lagu riixay ama tiro lagu riixay ama xoolo lagu riixay marka waxaan leeyahay ilaahay ha ku garab galo ilaahay ha ku haleeshiiyo dawga saxda ah ee adduunna looga gudbi karo aakhirana lagu gaari karo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka beesha caalamka dowlad goboleedyada intaba waxaan leenahay ogaaska aanu aqoonsannahay haddii aan nahay dadka uu ka soo jeedo waa ogaas muxyadiin intaa wixii ka dambeeya ciddii uga baahan beesha in ay wax ka muxuu ahay inay wax u curiso ama wax u magacoodo waxay soo maraysaa dariiqa toosan ee aanu isku raacnay maantana meeshaan u joogno dhammaan marti sharafta ugaasiyada dhalinyarada haweenka culimaadiinka siyaasiyiinta xamuud raaf dhammaan wasalaamantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi waxaan halkan madasha maanta isugu nimi haddaan nahay beesha maxamuud raab siyaasiyiinteeda iyo dhallinyaradeeda anoo ku hadlaya magaca dhallinyarada in beesha dhaqankeedii ugaaskeedii baryahan sida hore loo sheegay baa cudurdaar ama caafimaad u jiifay in doorkiisii uu ku lahaa dhaqanka maxamuud raab iyo soomaaliyiintaba in maanta aan u sheegno oon ogeysiinno dadka nagala dhaxayso waxwadaqaysiga iyo dhaqanka intaba inuu anagana matalo maanta laga bilaabo ugaas muxudiin ugaas faarax ugaas fooday ugaas axmed waxaan u sheegaynaa mar haddii annaga dadka beesha maxamuud raab ay ka go'an tahay inay ugaas muxudiin u yahay inay kala macaamilaan wixii dhaqana ay ugu yimaadaan waa ina cid kale oo lagu matashaa aysan jirin xagga dhaqanka ugaaska muxudiin ugaas faarax ugaas fooday sidaa darteed maanta wixii ka dambeeya waxaa dhaqan noo ah oo ugaas noo ah oo nagu hogaamiya beesha maxamuud raab ugaas muxudiin ugaas faarax sidaas ayaan u sheegaynaa dadka ayaguna inay si cadaalada oo maaragtay ku jirto ay u qaataan dardaaranka ugaaska rag horaa aan la dardaarmay in la tabayna waa la sheegay in maaragtay adduunka dhan waa isbedelay hadba ninkii la rabaa shaati loo geliyaa waxaan dadka u sheegaynaa mar haddii ay gaaraan fariimaheennu soo koobaynaa
markaana waxaan rabaa inaan u yeero soo koobaynaa markaana waxaan rabaa inaan u yeero nabadoon maxamed imaam maxamuud imaam cumar oo matalaya boqortooyada dhaqanka ee reer imaam markuu soo istaago hadlo kadibna haddii alla aqbalo ugaas Uxudiin ayaa soo garab istaagi doona sidaasayna noogu xirmaysaa marka ku soo dhawow nabadoon maxamed imaam maxamuud imaam cumar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan soo qaybgalayaasha dhaqanka siyaasiyiinta waxaan kaloo ku darayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay oo haweenka iyo maaragtay siyaasiyiinta waxaan ku salaamayaa magaca islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan kaloo sheegayaa maanta meesha waxa lama ujeedadu waxay ahayd ugaas Muxudiin ugaas Faarax waxaan ogahay waxaa yidhi dhalin waa kaada eg tahay waxayse ku dheertahay dhegaysi inuu la soo shaqeeyay aabahay imaan maxamuud imaan cumar isagoo la tegay shirkii carteed iyo midkii magaati intaba dhammaantood intaas waxaan la socdaa inuu ahay ugaaska imaamka garabkiisa ninka fadhiyay ugaas maxamuud imaan cumar waxaan kaloo ku darayaa intaas anigu malihi meeshan maanta imaashadeeda waxaan loo baahan yahay dhaqanku wuxuu leeyahay waddo la maro waddaduna haddii qaloocato bawba haddii la wada hadduu jidka ka baxo waxa waaye wuxuu sameeyaa shil dhaqankuna sidaas hadduu geftin sameeyo wuxuu keenaa shil meeshan waxaa iska lahay anagu dhaqanku waxaan u wakiilanay islow maxamed yuusuf cali imaan asaga ayaa lahay asaga inuu kasoo qayb gala maanta meesha ay u laheed maadaama uu safar jiro uusan joogin waxaa lay wargelshay haddaan anigu magaalada muqdisho waxaan soo galay 24 saac ka hor waxaa lay sheegay ugaaska loo jiranay una baahnay wax badan inaan soo salaamo meelaan uga hagaagan aan aqaanin maadaama nasiibkayga uu noqday sidaasaan uga soo qayb galay waxaan leeyahay lug hore lug damba haddii dhaafin ma jartaa dhiiri wax walbana waxay leeyihin silsilad iyo waddo la maro marka hadalka waa laygaga dambay doonaa aniguna dhaqanku meeshaasaan ka istaagsana maadaama inan imaan maxamuud aan ahay oon anigu leeyahay waxaan samaysanay annaga wakiil ilaa ay naga gaarto annaga maalinkii ay waddadeeda ii soo dhacdo maantana wixii aan ku qaldamay oon ku gafay midda allana allaan ugu toobageena midda dhaqankana ayagaa maqlaya raalli ka ahadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ku soo dhaweeyaa ugaas Muxudiin ugaas بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aqriyay dadka boqolka rag cadid ku salaamaya beesha maxamuud haraab oo meesha isugu timid hawlahayga awgood isugu timid tala ilaahayna ku timid aad iyo aadaan ugu mahadcelinaya nuuc kasta oo laga kooban yahay oo haween leh oo oday leh oo ugaas leh oo imaan leh oo salaadiin kala duwan leh oo siyaasi leh oo nuuc kasta leh oo halkaan isu soo aruurtay oo reer maxamuud haraab iyo wixii ka sarreeya oo islaam ah oo soomaaliya oo joogta mar labaad afar iyo tobanka boqolka quraanka xadiiska ku salaamaya حكم إلهي أيها سعودة حكم ناس ربي أيها سكون من إلهي بأن نظم علينا يا إله ملك سوكا يعني أولا سكون وطمأنا الحي ضوءك يا مام قاسي أولا سكا سوكا يعني سكا نكاح الصينية سكا يا نتصي وحي الوقت وحي نتصينا نتصي إله يا ملايين وحق علينا قفزت وحي موقع أساسا يقوم عن الرجال النسوات أتيس المحرين تستطيع الهلينا مثل نماذج ما هي وتجري يا على قد بتونا علمت إلهي هلوك دلالو لا عدنا هلوك دلالو دول
dulkeena ha la iska joojiyo kow waxaa kuu soo haray meesha tag waxaan isugu nimid annagoo ah magaca lagu celcelsho maxamuud hiraab anigana waad weydiin waa soodayaa la yidhaha ilaahay ayaana miisaanka aqriyay dadka adduunyada cadaaladooda haya waana layla ballamay ballanka laygula ballamayna ballanka ilaahay ayaa ka horreeyay midka ilaahay iyo midka laygula ballamana xiriiray leeyihiin laakiin midka allah ka sarreeya midka allah inaan qaato allah ugu tuko midkii aqoonta ila hadashay oo garabkaniga taagan oo meesha dadkan suu soo abaabulshada adigu aad soo dhistay midka iyo fareenna mid qaata ilaahu iga yeer cadaaladaas iyo sinaanta iyo diritada dadku u baahan yahay oo haddii cadaalad la waayo iyo istixgelin la waayo wax walba halaabayaan ilaahu wuxuu baryaa kala weyna jebiyahay ilaahu rabbiyo cadaaladaas iyo farfar oo qalbigayga geli qalbiga aamaha iyo kulli adaa hukumaan dhegta iyo maskaxda iyo gacanta iyo lugta iyo adaa hayo midkii aad nabadgelisana intaasaad wanaag u gelisaa islaamka dhan allah u geysa anigana gaar ahaan allah ii dhashay tiqdaas iyadaa ninkii ku socda oo ruuxii ku socda bini aadan ayaana faa'iida fii ka lehdaana wuu qasaara ruuxa qasaarana waa ruuxa ilaahay ku dhacday carada ilaahay allah naga badbaato ilaahay baan naga magan karta waxaan idinka ballan qaadaya haddii ilaahay ballanqaad allah iskale awoodda allah iskale maamulka allah iskale inaan ku dadaalo ama beesha maxamuud hiraab ha noqoto raggeeda iyo haweenteeda iyo odageeda iyo dhallinyaradeeda ama islaamka kale oo dheladariska oo islaamka ha noqoto intii awooddeeya inaan cadaalad kula dhaqmana waa aan ballan qaadaya haddii ilaahay yahay beelaha kala duwan oo duble oo sheeganaya dad meel haddii wada joogaan way kala sheegtaan marka garacyadu iyo mid gardarna allah in la kala sheeganayo annama moogi adiguna ma moogin kuwaas sheeganaya kuway ka sheeganayaan inay gartaan oo walaalahood waxa ay uga sheeganayaan ay ka daaweeyeen allah kas kuwaas kurusanna kuwii sabra allah ka yeelo ma sabraya allah wada walaalaya anigana waxaan ballan qaado wax kale maan waxa waaye intii awoodayda durubkaas isaga ya inaan dhex galo oo aan awoodayda wixii aan heli karo anoo ilaahay